siyaasi maxamed nuur cabdi shiin iyo xubno kale siyaasiyiin reer hiiraan ayaa soo gaaray degmada Buulaburte waxaana garoonka diyaaradaha degmada Buulaburte ku soo dhaweeyay waxgarad ah ururka dhalinyarada ururka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweyn kadib waxaa loo soo galbiyay gudaha degmada Buulaburte wuxuuna salaan sharaf ugu tagay ciidamada amisom ee ku sugan degmada Buulaburte salaan kadib waxa ay soo gaareen hotel Altaqwa oo ku yaala bartamaha degmada Buulaburte halka ay ku sugayeen boqolaal dadweyne ah ugu horeyn waxa xalfada soo dhaweynta ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka halkaas ku sugnaa waxa ayna sheegeen inuu ku habboon yahay in loo doorto baarlamaanka cusub musharaxa hadda u taagan xilka xildhibaannimo ee qaran maxamed nuur cabdi shiino musharaxaasoo ah ninkii labaad ee hamiyey degmada Buulaburte inuu u doonto cod asagoo ku dhashay wax la iloobi kara ma aha musharaxaas hadduu ilaahay yidhaahdo cidduu ka doonay iyo degmaduu ka doonayba war ma qaadeen waa nin mutacallima waa nin aqoon-yahana waa nin loo qaatayna waa ninka gadmaya bulshada Buulaburte iyo tan Soomaaliyeedba taas markaan meesha ugu gudbo ورثه هرلة وما لك الله هرطي هذا هو كفر علي ورثه جيسا مكان مقرني مكو ميمدو عدو الله إذا أعطنا لك الواسو دويننا وما أكتب يعني نقصد بعضي دمنا Buulaburte أبدا نصد دوين لك الخوضة مركا اللبعض أنك دمنا Buulaburte سدح سراء أمي الريري من حلبان دورا هي من هروح حلبان عاين طبعا وحنا صوت وعضو وحلبان كي اللبعض ودمنا Buulaburte وحكا دونا نصوت وعطي يا كنسر هين الله عدين وحاتا حلبان كي نوهر هالكا يمد لكي ربط الله الله وحفظ داوين وكانت فردقي ورطا مشرحة وحاتا برلمانك عصب أقل كسر إلهي وحاك هذا بريد إلهي قول كوكوكي siyaasi maxamed nuur cabdi shiina ayaa ugu dambeyn hadallo kooban halkaasi ka sheegay salaam عليك kadib wixii akhbaar waan dhageysanay waxaan u maleynayaa qof kastoo naga mida ama qof kastoo maqanba inuu ka qarsan yahay dhibka ka jirta Buulaburte hadal uma baahno waxqabad u baahan tahay Buulaburte waxaa jirta in ay qarsoon yihiinba oo aan la arkinba oo aan laga warhaynba maaragtay inay Buulaburte dad ku nool yihiinba taasna waxaa keenay dadkii xildhibaanadii horey u latanay dadka u maleynayaa saaka ilaa hadda ilaa xalay dad badanaa maaragta taagnaa labaaniga laftigayaan ku jiro daal badanaa jira xareer badanaa jirta waxaan rabaa inaan halka ku soo bandhigo arrimaha aan rabo inaan maaragtay qabto haddii aan la idmo Absalaan Maxamed Ibrahim TV-ga caalamiga Somali News degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan